tobanka calaamadood ee autismiga. Marka ugu horeysa waa markuu ilmaha hadalku ka raago. Ilmuhu hadduu kol 18 bilood gaadho waa inuu laba kelmadood amba 3 kelmadood ku hadlo. Calaamada labaad waa ilmihiyo markaad magaciisi ugu yeedhid aanan ku soo eegayn oonan soo jeedsanayn, marka hebelow la idhaahdo ma soo jeesto. Calaamada saddexaad waa ilmihiyo wax soo noqnoqda sameynaya. Imaga waxa laga yaabaa inuu kolba sii socdo amba dib u soo socdo amba uu ku cilciliyo wixii, amba waxa laga yaabaa inuu wax ku ciyaaro uu wixii mar walbaba wix la mida uu ku soo cilciliyo. Waxa la yiraahdaa repetitive behavior. Calaamada afraad waxaad arkaysaa ilmihiyo faraha hore lugaha ku socda, cagta aanan dhigeen lugaha oo faraha hore ku socda. Calaamada shanaad waa ilmihiyo aan hore u seexanayn amba hurdadu ayna ku filneen, hurdada ka xumaanaysa. Calaamada lixaad waa ilmihiyo aan buuq badan aanan qaadi karin, kala TV-ga hadaa aad loo dalaco amba hadaa la geeyo meel dad badan joogaan ma qaadi karo buuqa, qaarkoodna dhagahayba isqabtaanba. Calaamada toddobaad waxaad arkaysaa ilmihiyo aan carruurta kale aanan dhexgelin oo kelidii uun meel jooga oo cidla kelidii meel ku ciyaaraya, carruurta ma dhexgelayo. Calaamada sideedaad ilmihiyo wax uu bartay haddaad ka bedeshid wuu aad iyo aad buu caroonaya. Carruurta autistic waxay jecel yihiin in routine-kooga loo daayo. Imika ka soo qaad hadduu u bartay inuu aroortii iPad-ka ku ciyaaro, boolka ku ciyaaro, haddaad ka bedeshid oo tiraadid maanta dibaddaan u baxaynaa, aad buu caroonaya. Marka routine change-ka carruurta autistic ma jecla. Calaamada sagaalaad carruurta autistic waxaa lagu gartaa in fahmadu ay aad ugu yar tahay, receptive communication deficit. Ilmihiyo isleedid wuxuu micnaa oo la hadal dhaqso kuma fahmayo. Marka carruurtaasi badanka wax la tuso visuals. Imika kale haddaad ku tiraadid orod masqusha tag, waa inaad taswiir masqusha ku taalo aad tustid, saasuu ilmihii kugu fahmaya. Marka tobnaad carruurta autistigu ma jeclana in aad loo taataabto amba la hagareeyo amba la idhaahdo kaale hooyo kaale hag isi hcelin la daayo meel ay iska fadhiyaan.